haddii maanta ay dhacdaba doorasho one man one vote ah bilaahi calayhi madaxweynaha ku codeynaya ma waxaa ku codeynaya dadka la barakiciyey ma waxaa ku codeynaya dumarka hooyooyinka iyo aabbayaasha wiilashoodu firdad ku galeen kismaayo miyay ku codeynayaan ma waxaa ku codeynaya dadka la dagaalamaya daacish ee aan dowladda federaalku qayb kaga noqon yaa ku codeynaya waa dadka somaliland ka yimid ee arigu ka xiran yahay maanta ayaa ku codeynaya dib u xisaabtan oo madaxweyne xasan sheekh nasiib darro waxaa ku ah runtii in ciidamadii xoogga dalka diyaarada halkan laga gooy in dagaal lagu qaaday maamul ka mida maamulada dalka oo ciidamadii xooggu ay noqdeen qayb la laayay qayb cadow u gashay iyo qayb xuduudda firdad kaga baxday maanta sharaf waxay u ahaan lahayd madaxweynaha in ciidamadaas halka jubbaland laga dejiyayo in puntland laga dejiyo oo daacish ay la dagaalamaan sharaf iyo kalaamay ahaan lahayd taariikhna u geli lahayd waxaan filayaa sidii madaxweyne sheekh shariif uu qabtay markii ugu horreysay doorasho soomaaliya gudaheeda lagu qabto ninka qaban doona one man one vote waa isaga runtii qaraarada iyo isbedelada noocaasa qof nasiiha oo aan corruption lahayn oo ummadda soomaaliyeed ku kalsoon tahay oo nadiifun baa qaban kara laakiin nin corruption leh oo meel looga dhegan yahay oo habranaya oo ummadda ku xidhay oo dadka kala diray ma isbedel noocaas kama shaqayn karo hayna ogaana ayaa haddaan kaga gudbo halkaa arrimaha himilo qaran waxaan rabaa hal arayna ka dhahdo doorashada wanaawafod si xaaladda u faray qof walba oo soomaaliyeed wuxuu jecel yahay inuu arko waddankiisa oo dadku doorashooyin u dareeraya oo sharaf leh oo qurux iyo karaamo leh somaliland ma ka soo jeeda maalintooyinka ka dhacay somaliland oo ku faanaa waxaan aad jecel halkana ka dhacay laakiin madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisu ma qabanayaan mana qaban karaan meelay ku qabtaanna ma hayaan waddadeedana ma hayaan runta in laysu sheegaa fiican doorasho one man one vote ma golaha ma villa hargeysa ka dhex dhacaysaa waxa weeye maalintii madaxweyne xasan sheekh la doortay jaanis aad u ballaaran buu runtii haystay jaaniskaas wuxuu ahaa madaxweyne hore u soo tariyey haddana 5 sano mucaarid ahaa ummadda bartay wixii hore ka khaldamay dib u akhriyey mar labaad taladii haddana dib loo dhiibay ayuu ahaa wuxuu ahaa madaxweyne dadku maalintaa la doortay dhammaantood isbeddel rabeen oo cid waliba dhistay oo soomaaliya ka mid ah somaliland ka soo jeeda ayaa qayb ka ahayd kuna faraxsanay inuu xasan sheekh maalintaa guulaysto laakiin dhammaantood halka uu la marayo waan aragnaa nasiib darro waxa ah oo madaxweyne xasan sheekh nasiib darro waxaa ku ah runtii in ciidamadii xoogga dalka diyaarada halkan laga gooy in dagaal lagu qaaday maamul ka mida maamulada dalka oo ciidamadii xooggu ay noqdeen qayb la laayay qayb cadow u gashay iyo qayb xuduudda firdad kaga baxday maanta sharaf waxay u ahaan lahayd madaxweynaha in ciidamadaas halka jubbaland laga dejiyayo in puntland laga dejiyo oo daacish ay la dagaalamaan sharaf iyo kalaamay ahaan lahayd taariikhna u geli lahayd mayse dhicin laakiin maalin dhowd baan waxaan meel ka akhrinayay labada madaxweyne ee iyagoo jagada haya adduunka ugu badan ee dalkooda ka maqan waa madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha yamana riyaad iska fadhiya sacuudiga mas-uuliyad maaha in adiga cabdirabbi mansuur asuu xaalad ahaataa labadiima dalkaad ka maqantihiin midna sacuudiga fadhiyo madaxweynehuna inta badan waa maqan yahayba madaxweynow haddii aan in badan xoogaal dalka ahayn la-aanoo nalama joogtin inta badan haddii maanta ay dhacdaba doorasho one man one vote ah bilaahi calayhi madaxweynaha ku codeynaya ma waxaa ku codeynaya dadka la barakiciyey ma waxaa ku codeynaya dumarka hooyooyinka iyo aabbayaasha wiilashoodu firdad ku galeen kismaayo miyay ku codeynayaan ma waxaa ku codeynaya dadka la dagaalamaya daacish ee aan dowladda federaalku qayb kaga noqon yaa ku codeynaya waa dadka somaliland ka yimid ee arigu ka xiran yahay maanta ayaa ku codeynaya dib u xisaabtan sidaa awgeed looma socdo one man one vote laanna waxaa loo yahay inaan cod laga helin haddii one man one vote la gelayo waa in madaxweynuhu soo baxaa
musharaxiintu dhammaantood soo wada baxdaa kaabeen dadka xaafadaha degan yihiin ugu tagaan waxaan hubaa madaxweyne xasan sheekh maalinta madaxweynaha noqday xaafado badan oo meelay ku ogaayeen haddaba degan oo laga rabay hadduu siyaahado u tago cododiiso ma degan marka xaaladda saasa madaxweyne doorasho wanfood kuma dhacayso annagana kaa jecel hal mid ma ku xasuusinayaa maanta waxaan taagannahay halkii aad shalay taageen ee aad lahayd ama guduud ha noqoto ama cagaar ha noqoto mid la isu ogolyahay naan qaldanahay haddaan qaldanahay aad usuuligii shalay hal taagtaagtaa taas ayaa maanta laguda taagannahay ama guduud ha noqoto mid dhinacyada la isla hayo oo madaxweyne aad dhinac hayso annaguna dhinac hayno oo halkaa dhexda la dhigo ayaan diyaarunay mid niloo iyo sida aad uga shalay lahayd lama ogola taala soco